الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى waqtiga kooban oo aan haysano waxaan isku dayi doonaa inaan dul marno dhowr qodob. qodobka koowaad wuxuu yahay maxaa laga wadaa cinwaanka uu Sheekh Axmed ka dhawaajiyay oo la yiraahdo mukhadiraad. maxaa laga wadaa? waxaan soo bandhigi doonaa qodobka labaad tusaalayaal ka mid ah waxyaabaha magaalada laga isticmaalo oo maandooriyayaasha ah qayb ka mida. waxaan sheegi doonaa raadka foosha xun oo ay waxyaabahaasu ka tagaan. waxaan dul mari doonaa isticmaalka maandooriyaha xukunka sharciga oo uu leeyahay. waxaan sidoo kale ku lifaaqi doonaa in la iibiyo oo laga ganacsado xukunka ay leedahay. waxaan si degdega u raacsiin doonaa maxay yihiin sababaha keena. ugu dambeyn talo iyo tusaaleyn ku socota dadka ay arrintaana qusaydo oo wax ka qaban kara. mukhadiraad ama maandooriyayaasha waxaa la yidhaah waxay ka mid yihiin mashaakilaadka mujtamaceenna haysta kuwa ugu badan ayay ku jiraan. waxay ka mid yihiin arrimaha ugu khatarsan oo halis ku ah, khatar weynna ku haya dhallinyarada. maandooriyayaashu waxay leeyihiin noocyaal kala duwan oo ma ahan hal nooc ama hal qaab kaliya maahan. kulligoodna waxay ka tagaan raad foolxun oo ay ku reebaan bulshada. maandooriyayaasha isticmaalkoodu dhibka ay ka tagaano kuma koobnaado qofka isticmaala ee dhibkaasu wuxuu sidoo kale gaaraa qoyskii uu ka soo jeeday qofku ama uu la noolaa. wuxuu sidoo kale dhibaato baaxad leh u geystaa bulshadii uu ka tirsanaa. sidaas awgeed ayaa waxaa waajib ah, maadaama khatartiisu ay tahay khatartaas baaxadda weyn, in loo istaago sidii looga hortegi lahaa maandooriyayaashaas faafitaankooda iyo isticmaalkooda, iyadoo la adeegsanayo wasiilo kasta ama qaab kasta oo lagu horjoogsan karo oo sharciga waafaqsan. maandooriyuhu ma ahan wax innaga bulshadeenna keli ah haysta maahan. waa mushkilo caalami ah oo mujtamacaadka adduunka dhibaato ku wada hayda. sidaasoo kalena cid walbaaba ay la daala dhacayaan raadka foosha xun oo mukhadiraadka iyo maandooriyayaashu ay ka tagaan. waxauna dhibkoodu gaaraa meelo kala duwan ee dhibkoodu kuma koobna hal meel keli ah. oo wuxuu dhibkoodu gaaraa xagga dhaqaalaha, diintii, bulshadii, siyaasadii, amnigii, meel walba ayuu dhibkoodu gaaraa. marka waa dhibaato adduunyadii kale xataa ay la daala dhacaydo. sidaas awgeed markaad akhrido bugaagta laga qoray ama qoraalada ay dowladuhu ka sameeyeen ama xataa United Nationku uu ka sameeyey, waxaad arkeen lacagaha ku baxda oo lagu gato in ay xaddi aad u ballaaran leeyihiin. lacag aan fowqal caqliya. waxaan soo bandhigi lahayn nambaro iyo wixii u dambeeyo adduunka laga qoray, laakiin waqtigu ma saamaxayo. sidoo kale lacagaha lagula dagaalamo
oo kaba soo qaad dowladaha xoogga lahu ay kula dagaalamaan iyaduna xadkii ka baxday sababto waxay tahay dhibaatooyinka dhaqaale ama dhibaatooyinka amni oo waxaanu ay leeyihiin kaliya maahan maandooriyayaasha heer khatartoodu uusan sahlanayn gaareen oo waxay gaareen heer dowladuhu u isticmaalaan dowladaha kale oo ay u isticmaalaan sida hubka caadiga oo diyaaradaha iyo taangiyada loo isticmaalo oo kale ayaa loo isticmaalaa maandooriyaha oo dowladdii aad adigu rabtay inaad burburido waxaa dhici karta inaysan kuu suurtogelin in aad si toos ah u faragelido oo aad hub caadiya isticmaasho inaysan kuu suurtogelin laakiin maxaad isticmaale lacagtii taas kaaga bixi lahayd lacag ka yar ayaad u isticmaale bulshadaas inaad maandooriyaha ku faafido noocyadiisa kala duwan adigoo weliba taargad garaysanayo oo beegsanayo dhalinyarada si ay u noqdaan awood burburineed ay dalkaasuna uu awood ugu yeelan waayo inuu cilmi ahaan iyo bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo garaad ahaan inuu ku soo gaaro ama iska kaa difaaco si ay u suurtogeli weydo marka dowlado ayaa xataa maalgeliya si ay ugu jabiyaan dowlado kale mararka qaarkood marka waxaa laga yaabaa dadku inay u haystaan maandooriye caadiyo oo dadku iska gadanayaan ma ahan mararka qaarkood ee waxaa ka dambay kara ujeedooyin kale mukhadiraad ama maandooriye maxaa laga wadaa maandooriye af Soomaaliga marka eray ahaan lagu dhawaaqo waa eray macnihiisu cad yahay waa qofka garaadkiisa iyo maankiisa isbedelka waxyaabaha ku sameynaya cilmi ahaan qolooyin kala duwan ayaa qeexaan oo sheegaan maandooriye waxa laga wado qolo waxay ka fiiriyaan xagga luqadeed qolo waxay ka fiiriyaan qaanuunka qolo waxay ka fiiriyaan cilmiga bulshada qolo waxay ka fiiriyaan cilmiga fiqiga qoloba meelay ka fiiriyaan qolo walbaana waxay ku cabiraan ama ku qeexaan ayagu waxay u yaqaaniin maandooriye sidaas awgeed ma jiro hal macne oo la isku wada waafaqsan yahay oo mukhadiraadku leeyahay laakiin si guud waxyaabaha la isla ogol yahay waxaa ka mid ah mukhadiraadku waa waxyaabaha si dhammaystiran caqliga u zuuliya ama si juz'iya oo caqligii oo dhan ma burburinayaan laakiin qayb ayay caqliga saameynayaan waxaasu ama ha noqdeen wax dabiici ah oo dhulka ka soo baxay oo geeda ah sida qaadkoo kale ama ha noqdeen wax la farsameeyey oo chemicals la isku daray ah noocay rabaan ha noqdeen waxyaabahaas waxaa ka dhashay isticmaalkooda in qofku u qabatimo oo uu ka joogsan waayo kadibna iyagoo tusaale ahaan sumaynaya oo dhibaato gaarsiinaya bahalkii nerviyaasha qofka ayay saameyn ku samaynayaan sidaas awgeedna qofku wuu joogtayna waxaan soo bandhigaynaa qaybo ka mida waxyaabaha la isticmaalo waxay u qaybiyaan dadadka wax ka qoray maandooriyaasha kuwa waaweyn oo khatar ah iyo kuwo aan fiicnayn laakiin dhibkoodu uu kuwaas ka yaryahay kuwa waaweyn waxa ay ku daraan qaadka oo annaga dalkeena laga isticmaalo waxaa ka mida waxaan kokayiinka herowiinka iyo waxa la midka oo dhan darogooyin waaweyn oo qofku hadduu heerkaas gaaro soo noqoshadiisu aysan fududayn waxyaabaha annaga hadda dalkeenna jira waagii hore dalkeenna wuxuu lahaa jiray waxaanan aqoon iyaga iyo qaadka ciddii horreeyday laakiin markaan caqliyeystay waxaa jiri jiray tubaako iyo magaad ayaa la isticmaali jiray oo qofku markuu bilowga yahay dhib weyn maskaxdiisa gaarsii kara waxaa soo biiray jaadkii ama qaadka waxaa jiray iyaduna khamradii iyo waxyaabaha iyada labahda ah laakiin tubaakadii iyo magaadkii afka la gasho jiray waxaad moodaa
xoogaa waxaa booskii waa dhexe ka riixday sigaarka oo ah tubaakadii oo qaab kale loo isticmaalay waxyaabo dheeraadahuna ay ku jiraan maadaama ay tubaakadii meesha ka baxday sigaarka laftirkiisu xoogaa waa yaraaday laakiin isagiina waxaad moodaa kuwa ka awood badan ama isaga la mid ah ayaa bedeleen waxyaabaha la isticmaalo oo magaalada lagu arko waxaa ka mid a geeddaas geeddan waxaa la yidhaa magaalada markaan imid kadib aan bartay taambu ayaa magaalada looga yaqaanay yidhaahdeen geeddan waa nooc ka mida waxyaabaha la isticmaalo oo khatarta ah waxaa kaloo jira cirbaddan oo saliingihii iyo wixii layskula duri lahaa la gado oo farmashiyaashu gadaan oo ah waxaa ku taal tramas mid waxaa jira kiniiniyaal ay u isticmaalaan oo isna la yidhaah tramadol isagoo kiniiniyaha la isticmaalaa waxyaaba way badan yihiin laakiin waxaanoo kalea ka mida mid xanjaha jira tusaalan kan muxuu yahay geedkan asal ahaan waxa ugu muhiimsan oo ku jira waa tubaakadii oo lagu daray walxa kale geed cad oo u eg af soomaaliga wax lagu yiraa ma garanayo waa geed cad oo sida burkoo kale u eg oo lagu cajiimo waxyaabahaasa ku jira waxaasa inta laysku qasay ayaa waxaa laga sameeyey geed kuusan oo afar gees ah oo daanka la gashado muddo dheer ayuu daanka ku jiri karaa oo qofku uu haysan karaa geeddan waxaa laga keenaa markaan raadiyey inta badan waxay ka timaad dowladaha bakistan iyo hindiya iyo nebal iyo meelahaasoo laga keenaa waxaan geeddan isticmaalkeeda horta dadka yaqaana isticmaalaa yaqaan laakiin iyagu waxay leeyihiin waxaa la gashadaa daanka muddo dheeraana ay afka ku jiri kartaa oo lagu hay karaa marka koowaad qofku wuxuu dareemaa in afkiisu uu noqonayo fresh oo u noqonayo tusaalahaan qof xanjo kulul cunayoo kale laakiin waxaa ka dhalanahay leeyihiin khataro farihii ka batay waxay tixayaan liis dheer oo khatar ah cunto maahan oo qadayi quraac ma gasho caafimaadka uma roona jaabka uma roona waxay burburidaa caafimaadka meelaha ugu daran ay halista ku tahay waa caafimaadka waxyaabaha ay sheegeen iyagu oo meel walba ku dhigan oo ka dhalan kara waxaa ka mida qofka inay saamayn weyn ay ku samayn karto awoodda inuu taran yeesho macnaa inuu ilmo dhalo awooddaas saamaynay ku samaynay waxaa ka dhalanahay yidhaahdeen wuxuu dhaliyaa cudurrada ku dhaca wadnaha oo sabab u noqdaa wuxuu badanaa keenahay yidhaahdeen kansarka ku dhaca inta uu geedkaanu marayo tusaale ahaan kansarka ku dhaca kansarka ku dhaca dhunta kansarka ku dhaca sambabada waxaasoo dhan ayuu tusaale ahaan dhaliyaa marka cudurro badan ay tixayaan oo geedkan ka dhashay geedkan qofku markuu gadanayo wuxuu gadanaa isagoo ogol wax alle wixii ku jira oo dhibaataa isagoo ogol ayuu gadanaa loomana qarin oo ma ahan wax inta laguu ammaano oo laguu xayeesiiyo aad ku sirmaydo oo aad dhihi karto waa ku khaldamay maaha qolooyinka gada si ay iyagu damiirkooda ama dowladaha ay joogaan ay u raalligeliyaan waxaa lagu qoray luqad
laba luqadood oo kala duwan far waaweyn oo indhoole hungaysana waa lagu qoray oo uma jeedin iyo waa ka ilduufay aysan anfacayn waxaa lagu qoray it is more dangerous than you think inta kale waxaa la yidhi dhinaca kale isla intii oo kale iyo akhtar mima tadun way ka khatarsan tahay inta adigu aad u malay karto marka wax lagu qariyo maaha malkul mawdkaagaad iibsane adigoo indhahaagu ay shanta yihiin waxaa ku xiga tusaale ahaan tramadolka isagoo kaniiniyana waa la isticmaalaa isagoon kaniini ahaynna waa la isticmaalaa tramadolka anugu dhakhtar maahi laakiin waxaan akhriyey waxa u qoran dadkii samaystay waxay leeyihiin tramadolka waxaa loogu talagalay qofku markuu qabo xanuun aad u fara badan tusaalaan xanuun kaarjabiyaha caadiga ah oo paracetamolka iyo waxaas aysan jabi karin markuu qofku hayo ayaa loogu talagalay in xanuun baabi'iyahaas la siiyo wuxuu bedelaha yidhaahdeen marka qofku cuno sida jirkaagu uu u dareemaya xanuunka ayuu isbeddel ku samaynaa oo xanuunkii qofka waa ka yaraana waxaana la isticmaalaa haddii qofku uu adkaysan waayo 4 saac ilaa 6 saacadood inta uu qofku qaadan karo kuwa aan arkay oo magaalada laga isticmaalo la ii soo diray masawiradooda waxaa ku qoran 100 milli meelahaas inay ahaayeen laakiin waxay leeyihiin dadka caafimaadka waxa u qoran iyaga waxay leeyihiin inta qofka loo qorayo uu isticmaali karo xanuunku markuu hayo waxay ku xiran tahay qofka xaaladiisa isku wax dadka dhan lama sii karo salaam qofka caafimaadkiisu fiican yahay qofka daa qofka jiraalow ah qofba midka munaasibka u ah in loo qoro way laakiin qofku hadduu mid weyn inta iska soo qaato iska laqo waxa dhici karta inuu markaas xataa dhibaato weyn ay soo gaarto maadaama marka dadku aysan inta dhakhtar u tageen wax dhakhtar qoraya ay ahayn marar badan waxaa dhaca intii qofku isticmaali karay ka badanay ay isticmaalaan markii ay sidaas u dhacdana waxa ka dhacday yiraahdeen dhibaatooyin waxay tixayaan farihii ka batay waxaan ka soo qaatay 2 iyo 3 waxa ka dhashay yiraahdeen qofku in mararka qaarkood ay dib ku noqoto nafta inuu nafsado ayaa dib ku noqonaya yiraahdeen waxa isbedelaha yiraahdeen dareenkiisa maskaxeed inuu wax dareemi karo isbedela ku imaana waxa ku imaanaya yiraahdeen mararka qaarkood hurdo xadki ka baxday oo qofku uusan waxba control karin waxa ku imaan kara yiraahdeen waxa u yaqaaniin unusual tiredness dal an normal ahayn dalka caadiga bani aadamku caadiga u ah wax ka awood badan ayaa ku yimaada mararka qaarkood waxa dhici kara yiraahdeen inay ku dhacdo mental depression qofka oo maskaxiyan depressionka af Soomaaliga waa wax u dhow marmarka qaarkood waa aragtay waxa xumaana qofka dareenkiisa nolosha oo dhan ayaa ka soo xirme adduunyada dhan ayaa la qiimo tirme inuu dhinto ayaa laga yaabaa inay uga sahlanaato inuu xataa sii noolaado maskaxiyan saasa ku dhaca yiraahdeen mararka qaarkood waxa ku dhacay yiraahdeen jarayn uu iska jarcina isagoo aan control karin oo iska jarcina marka dhibaato kuwan iyo kuwa ka daran ayaa ka yimaada waxaana ka dhalan kara aakhirka xataa inuu qofku u dhinto way fara badan yihiin waxyaabaha la isticmaalo kan midkan oo taambuga loo yaqaan wuxuu ka tirsan yahay in iyagu smokeless tobacco tobakada aan lahayn qaca waxyaabo isku baha oo noocyo kala duwan ayay qayb ka tahay marka ma la isticmaali karaa geedahan xukunka sharciga muxuu yahay goormaysa adduunka waxaanu ku soo biireen culimada dadka taariikh ahaan waxaan u kuur galay oo daba galay waxay leeyihiin waxyaabahan oo mukhadiraadka maandooriyaasha waxay leeyihiin waa wax sida shirkigu 10 qarni kadib uu u yimid
nabiyullaahi aadam markii la abuuray sidaasoo kale ayaa waxaa la qiyaasaha yidhaahdeen mar aan dhoweyn oo hore oo kumanaan sano ka hora ayaa bani aadamku waxay ku baraarugeen maandooriyaasha inay isticmaalaan shaydaanku waa yaqaan meel kasta oo maslaxadiisu ku jirto sidaas awgeed waxay yidhaahdeen markii adduunka baaritaano la sameeyey waxaa la helay raadad badan oo sheegayaan in adduunka laga yiqiin maandooriyaashaas zamanno hore oo shucuubtii qadiimka ahayd oo dhan way yiqiineen yidhaahdeen gaar ahaan waxay aad u yiqiineen xashiishka waxayna u yiqiineen magacyo kala duwan ilaa hindida waxaa aad ii soo jiiday hindida waxay ula baxeen uu yidhi hinduusku mukhafif alaxzaan tiiraanyada ayuu jabiyaa macnaa u khafiifiyaa tiiraanya jabiye ayay u yiqiineen marka waa sun waa hore la isticmaali jiray oo maalinba geed soo harsatay ma la isticmaali karaa maya lama isticmaali karo shareecadu way xarintay waxyaabaha maanka iyo maskaxda iyo caqliga wax u dhiba noocay rabaanba ha noqdeen sababtu maxay tahay shareecadu waxay leedahay sidii muxaadaradii horeba ku jirtay 5 meelood oo diinta oo dhan biyo dhac u ah oo diinta oo dhan ay 5taani ku dhammaaneen 5taan qaybood isugu timaad oo ay isugu soo hortaa in ayaga la taabtana lama ogola 5taas marka waxaa ka mid ahaa naftii waxaa ku jiray tusaale ahaan oo 5ta ka mida caqliga tanu marka caqliga ayay kuwaanu la dagaalsan yihiin wax alla wixii marka caqliga la dagaalsan shareecadu waxay ku qaadaa dagaal aad u ballaaran waxaa ku soo arooray aayado iyo axaadiis iyo ijmaac kulligood ishaaray oo tilmaamay inaan la ogolayn arrimahaasoo dhan waqtigiia dhammaada marka wixii ma wada akhri karo weliba iyada midaan caqliga keliya waxuma dhibto dhibkeedu wuxuu gaaraa xaggii caafimaadkii guud dhaqaalihii bulshadii amnigii dalka iyo meel walba ayuu dhibkeedu gaaraa ma la iibi karaa maya lama iibi karo ganacsatadana waxaa ka xaaraana in ay gadaan oo ay dalka keenaan waxaan lacagta laga bixiyaana way ka khatarsan tahay haddaad doofaar aad qasho oo aad dadka ka iibido way ka daran tahay waxaa laga yaabaa doofaarka dhibaatada ka dhalataa inay ka yar tahay kuwan haddaad aad khamrada iyo maandooriyaasha kale aad ka iibido waxaa laga yaabaa inuu doofaarku ka dhib yar yahay ama aad doofaar adigu cunto dadku waa yaqaanin doofaar in la cuno inuusan fiicnayn laakiin tanaa ka khatarsan waxaad sumaynee oo aad baabi'ine jiilal dhan marka inaad ka ganacsataahu waa xaaraan qadcana waxaa dhici karta haddaad ummadda sumaydo oo aad suntan ka gaddo dhibaatada lacagtaad ka heshay markaad ciddaadu isticmaasho waxaa laga yaabaa dhibkaasu adiga faracaaga xataa inuusan ka harin dadku waa yaqaaniin dadadkii jaraa'imta qaar ummadda ka geli jireen waa la yaqaan xataa mararka qaarkood wuxuu u tallaabaa dhibku dadka adiga kaa haran marka waxaa roon in aysan ganacsatadu isku mashquulin inay waxaan lacag ka raadiyaan maxaa keenay waxaan in la isticmaalo sababo badan oo hadda aanan sheegi karin oo ay ka mid tahay dhallinyaradii inay saaxiibo xun yeeshaan ama qaraabo waxaan isticmaala ama maskaxiyan dad u jiran ay yihiin iyo wax la midka tala ahaan waxaan kusoo gabangabaynaa tala ahaan tala 3 dhinac leh mid waxay ku socotaa ahalka inay ilmahooda la socdaan oo ilmahooda wacyi geliyaan oo maandooriyaasha ka wacyi geliyaan haddayse iyagu aqoonna ay la raadiyaan dad yaqaan howlahan iyadoo la adeegsanayo tusaale ahaan ama television ama internet ama noocay rabta ha noqoto ama raadiyo in meel kasta loo adeegsado in dhallinyarada la wacyi geliyo midda labaad dhallinyaradii haddii ay dhacdo cudurkii inuu ku dhaco si miyir qabta in loola dhaqmo oo qofkii uusan noqon qof la weel duwo oo la takooro oo looga sii daro inuusan noqon qofka qaab uu ku daawoobi karo loo raadiyo ee aan asaga sheedda laga sii bixin oo si fiican loola dhaqmo ilmahooda waa inay isha ku hayaan isbeddelka ku imaanaya midda labaad waxay ku socotaa maamulada jira maamul kasta waxaan kula talinaynaa in ay khatartan weyn
oo ummadda dhaqaalaheedii iyo meel iyo caafimaadkeedii iyo amnigeedii iyo meel walba khatarta ku haya inay la dagaalamaan gacan birana ku qabtaan midda saddexaad waxaan kula talinaynaa ganacsatada in ciddii ku qaldantay oo aan awal horay u ogeyn ilaahay inay uga toobad keenaan hadda kadibna aysan dalka soo gelin ciddii soo gelinayda ama gadayda arkaanna inay la taliyaan oo u naseexeeyaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.